بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada barnaamij kale oo nagu talagalnay bulshada degan Seattle Washington iyo dadka kale Chinese oo hela adduunka meel kasta ay joogaan ka daawadaan haddaba sababtan maanta barnaamijkan u qabanayna ama aanu jecelnayn inaan u bayaamino waxa weeyaan sidaynu la wada socono meel kasta oo adduunka ka joogtaba waa coronavirus oo noqday waxa ugu badan ee baraha bulshada lagaga hadlo waxa kaliya ugu badan ee meel walba soo galay ee saameeyay noloshii bini'aadamka maanta meel kasta oo ay joogaan qaarad kasta oo ay joogaan waa caabuqa loo yaqaan corona taasaa keentay haddana barnaamijkan maanta inaanu qabanno oonu siyaal bal sida ugu diyaargarowda iyo waxa laga rabo waxaan jecelahay inaan su-aasha ugu horeysa weydiiyo faarax bilo oo isagu ah Somali Helport waa gudoomiye ku-xigeenka Somali Helport iyo King County oo qaybta caafimaadku bal waxa ay ka leeyihiin arrintan aad baad u mahadsan tahay coronavirus waa caqabad soo wajahday caalamka aan ku noolnahay gees iyo ka gees Somali Health Board markaan ka hadlo waa urur caafimaad oo u heelan in ay caafimaadka bulshada Soomaaliyeed iyo dadka aan la noolnahayba inay horumariyaan sidaas si lamid ah Sierra King County Public Health waxa waaye waa waaxda caafimaadka ee gobolka aan ku noolnahay gaar ahaan degmada aan ku noolnahay ujeedada aan ka leenahay barnaamijkan waxa waaye in uusan ku fidin bulshada bulshadeena gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed sidii looga hortagi lahaa fiditaanka cudurkan loo xakameyn lahaa loona yareyn lahaa dhimashada iyo dadka u soo dhacayo cudurkan asaga ah waxa bidixdeeda fadhiya maxamed sheekh sidaynu wada naqaanba waa nin laga garanay state of Washington muddo badanna ka soo shaqeeyay meelo badan community badan dawladda magaalada iyo tan gobolkaba la soo shaqeeyay wax badan arrimaha bulshada Soomaaliyeedna aad iyo aad runtii uga warhaya maxamed arrinta isbedelka keentay bal noo sheeg arrintan coronavirus especially waxaynu ognahay sideenaba inaad qayb weyn ka qaadato qof islaam oo Soomaali markuu magaalada ku dhinto qofka ugu horeeya telefoonka helaatay ama shaqo ku jir ama hurud ama meel kasta joog qofka ugu horeeya arrintan naxdinta la dirsabatay marka laga reebo familkii qofkaasi ka geeriyooday sidee arrintaasi isu bedeshay sidee se la doonayay wax maalinta meel loo dhigo maadaama coronavirus wadadii gooyay loo marayay Mustafa walaal aad badan mahadsan tahay Sam TV aad bay mahadsan arrintan in fact arrinta laga hadlay waa arrin aad xasaasi u ah xaaladuhu aan ku jirno maanta saad la socotaan wadanka iyo adduunkaba waa xaaladii hore waa isbedeleen waxyaalo badan ba isbedel badan yimid ujeedada ka dambaysa cudurkan faafitaankiisa uu noqday cudur aad u faafayo dadkana dhibaato fara badan ku keenayo taa iyada markay dhacday waxa la isku dayayaa maamulka adduunyada dhan meel walba la joogo gobol walba la joogo meel walba waxay isku dayayaan in la yareeyo faafitaanka cudurkan taa maxay keentay marka taa waxay keentay waxyaalo badan oo marka hore ummadda ay u ahaystay caadiga in la joojiyo maxaa kamid ah aroosyadii waa la mamnuucay kaniisadii la isugu tagay waa la mamnuucay masaajidadii waa la mamnuucay xabaalihii la isugu tagay waa la mamnuucay sadogtihiin ba Sniintan soo dhaafnay governorka marka hore wuxuu ahaa ilaa laga soo bilaabo 150 qof waxay timi arintii 50 qof waxay timi 10 qof Sniintan soo dhaafnay governorka wuxuu ku dhawaaqay qaraar ah in la isu iman karin absolutely in gaar ahaanna markuu go'aanka nooca soo saaro hay'ad walba way qaabilsan tahay marka tan khusayso waxa way xabaasha iyo geerida haday timaado qofka Soomaaliga ah ama qofka muslimka ama qof kasto geeriyoodaba iyo funeral home-yada ama Christian haada muslim ama Jewish haado ama kala soo saara waxa la yiri wax xabaalo la sameyn kara ma laha naamta ayada dhibaato weyn bay noo keenaysaa sharciga uu soo saaray governorka waxa turjumaya department-ka la yiraahdo DMV da qolada department of license ayaa turjumaysa governorka oo yiri 4 qof ilaa 5 qof uu yiri laakiin department-ku waxay yiraahdeen 0 marka amarka asaga ahaa waxa loo gudbiyay funeral home-yada loo gudbiyay waxa loo gudbiyay meelaha aaska marka taa ayada waxa way inay fuliyaan sharciga waa laga maarmaan haddaba maxaa dhacay marka dhaqan waxaan u leenahay kumanaan sano ayaa waxa diinteena farayso qofka naga dhintaa in aan janaasadii tagno in aan xabaasha u raacno in aan meesha ka qayb galno qofka walaalkeen ah taasoo waajib nagu ah islam waajibkana saaran laakiin duruufaha jira maanta maxaa dhacay duruufaha dhacay maxaanta waxa wixii oo dhan la isma ogola dhaqidii meydkii waxa lagu talagalay 2 qof in dhaqo hadii la dhaqi karo hadduu ku dhiman qofka cudurka coronavirus-ka oo qofka caadiga u dhintaa janaasadii waxa la dad yar ha ku tukadaan oo looma ogolo in xabaalihii meesha lagu tukan jiray lagu tukado ama masaajidii lagu tukado waa caqabad kale xagga nooga timid marka maxaa dhacay intii go'aanka soo baxay maxay Soomaalida aan kala kulan dhibaatada ayada waxaynu kala kulannay Allahu naxariistay qof baa ku dhintay magaalada Siyaaro qof la aasiyay maalintii Talaadada ahayd
run ahaantii markii arrintii soo gaartay waxaan waay xabaalihii waxaan codsaday in ay xabaal noo furaan waxay yidhaaheen go-aanka ka soo baxay governorka awgees ma ogolaan karno in qofnaba naloo keeno meesha meydka waad noo keenaysaan waa idinka qaadayna annaga idin aasayna wada hadallo badan kadib waxay noo ogolaadeen in at least 10 qof oo immediate family-ga reerka ugu xiga ah oo aasi kara inay yimaadaan xabaashada run ahaantii arrinta ayada mayna dhicin waxaa dhacday 10kii subaxnimo markay ahayd xabaalihii Snohomish waxaa tagay 200 oo gaari imagine gaari 200 oo gaari imise qof saaran nacam gobolka aan joogno especially Snohomish County-na meel diverse lama aha meel ay madowga degan yihiin iyo minority degan maaha meel wadada cadaan degan yihiin oo sharciga aad ugu adag weeye team waxay keentay in layla soo hadlo la yiri ballankii waad ka baxday meedkiina meesha lagu maasayo waa in la noqotaan waa arrin aad u adag bay noqotay run ahaantii dadkii odayaasha meesha joogay iyo ninkii funeral home-ka ah tilaabo fiican bay qaadeen baabuurtii waxaa laga saaray meesha aaski oo dhanba waxaa khasab noqotay meedkii banaanka loo bixi banaanka lagu soo tukado haddana dib loo soo celiyo oo dhowr qof ay meesha ku aasaan laakiin sharciga weli lama fulino markii buuqii weli waa jiraa marka buuqiina ka ugu weyn oo laga dacwoonayo weeye taa maxay dhalisay marka taa waxay dhalisay shalayto oo maalin qoyan ah meyd dhacay oo la aasi lahaa oo nin oramo ah in la yiri lama aasayo haddaad doonaysaan meydka noo keena waa idinka qaadeenaa annaga idin aasayna marka waxaan dadka Soomaalida u gudbinayaa geeridu waa xaq laakiin duruufaha jira waa in la raaco weeye berritooda ma heli doono meel aan ku aasano cid naga qaabisho oo noo qaata meydkeena ma heli doono wuxuu noqon doonaa meydkeeni haddaan la aasin maxaa lagu samaynayaa jaamacadaha qaadanaya ma la gubayaa niman yahow arrintan ayada arrin sahlan ma aha waa su'aal aad u weyn marka taan samayn karna maxay tahay fadlan wa ihsaanak hadday noqoto janaaso iyo hadday noqoto meel la dhaqayo iyo hadday noqoto xabaal la tagayo numberka la soo ogol yahay waa 10 qof ama 4 qof inta ugu badan marka fadlan arrinta ayada hal la maqlo hal loo dhagdulaalo waxaa dhici doonta haddii la qaadan waayo amarkaas inaan meydkeygii la aasin ama jaamacadaha la siiyo ama aan gubno runtii waa wax aad u naxdin badan taasina waa hadal maqlinta la'aanta ay dadku keenayaan isu imanayaan qof waliba isleeyay waad garanaysaa waa xigtadaadii soo tus in geerida aad ama jinaasada ku soo tukato laakiin dhinacii sharcigii baaba sii adkaynay marka dhibka la geysanaaba ka sii weyn waa run Mustafa waxaaba ka sii daran sharciga maxaa loo soo saaray sharciga waxaa loo soo saaray in cudurkan faafin markii 100 qof isu timaado imise qof cudurka qabta imise qof ay gaarsiin karaan waa arrin aad iyo aad runtii aad iyo aad waxaan jeclay bal su-aasheeda kale inaan weydiiyo Sheekh Axmed Nuur oo isagu ah imaamka Abubakar Islamic Center ee Seattle Washington sheekh kolley fariimo badan baa ku yimid hadda koorna barnaamijkii kan ka horreeyay halka ka baxay waxaanu ka sii daynay maxaa looga baahay qofka islaamka ama sidee jinaasadiisa intaan lagu tukan loo dhaqi karaa meydka haddii ilaahay naguma keeno qof ku yimaado waanay dhacdayba imika sharciyada islaamka aad nooga sheegi kartaa ama maxaad faraysaa dadka islaamka ee videogeygan daawanaya meel kastoo adduunka joogaanba ama qisadan oo kale khaas ahaan magaaladan aynu joogno ee Seattle Washington بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ولا المصطفى iyo dhamaan Somali TV iyo Somali Health Board iyo dhamaan waa idin wada mahad celinaya jaaniskan aadna siiseen aan dadweynaha kula hadallo arrinta qofku hadduu dhinto muslimka ah sidiisa boorto cudurkan waa cudur ummadda oo dhan wada wareeriyay ilaahay subxaanahu wa tacaala baan weydiisanaynaa inuu ummadda ka kor qaado inagana badbaadiyo laakiin haddii ay dhacdo way dhici wayna dhacdo wayna dhici haddii qof muslim uu dhinto maxaa inaga inala gudboon inaan idhaahno qofka sidiisa markuu dhinto 4 shay baa waajib u ah waajibkaas waxaa lagu leeyahay dadka nool waxaa ka mid ah in qofka la dhaqo waxaa ka mid ah in qofka lagu tukado waxaa ka mid ah in la kanfo in lagu tukado iyo in la aaso afarta arrimood waa waajib waajibka waxa la yiraahdaa waa waajib kifaaya fardu kifaaya way waajib ayni ama fardu kifaaya way hadii dadka qaar kamid la yimaadaan wuu dhacaya intii kale wuu ka dhacaya waajib kuma dambaabayaan hadii wax arinta fuliye la waayana dadka muslimiinta oo dhan way ku dambaabayaan haddaba waajibku markuu sidaas yahay waxaa jira marar badan waajib intuu waajibo laakiin dhacaya haddana oo la waayayo waajibkii uu ka wareegsanayo ee dadkii maxaa jira hadday suuro geli weydo in qofkii la dhaqo sida hadda siyaabaha socoto oo kale cudurkan arrimaha ay u suuro geli weydo in la dhaqo waxaa ka mid ah kow inuu qofku gubto culimada muslimiintu way ka hadleen waayo hore quruun ka hor baa laga hadlay
qofku inuu gubto hadduu gubto qofkii dhan oo ka soo qaado wada gubtay maxaad samayn kartaa biyo ma ku shubi kartaa ma la taaban karaa ayib haddii qofkii uu cudur ku dhaco sidoo kaleo fidaya oo loo baqayo ruuxay dhaqi lahaa isagana waxaa leeyahay lama dhaqi karo dowladaha lagu dhex nool yahay baaba diidayba in la taabto iyadana waa cilad kale intaasoo dhan hadday timaado la yidhaha qofkii lama dhaqi karo horta waxaa loo wareegaa bedelkii dhaqidda ama weysada wixii bedel ka noqon jiray waa gebagabaysi ama tayamum ama booraysi wixii lo odhan jiray haddii marka isagana booraysigii qofkii lama taaban karaa la yidhi waa isku mid marka haddii la taabto oo la dhaqo iyo haddii la taabto loo gebagabayn lahaa labadaba taabashay noqonaysaa cudurkiina wuxuu u baahan yahay masaafo iyo xad ka fog in qofkii loo jirsada haddii la yidhaahdo maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa dhaqiddu way dhacaysaa sharciga islaamka way ka dhacaysaa marka waajibkii wuu kaa dhacayaa waxay noqonaysaa wixii la awooday fattaqu llaha ma statactum intaad awoodaan alla ka baqa baa la yidhi marka intii la awooday ayaa laga baqay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha su-aal baa imaan kartaa qofka hadda cudurkan u dhinto oo kale waxaa lagu xidhaa plastic baa dusha looga xidhayaa horta intaan taa la gaarin waxaan rabaa inaan baraarujiyo inaan weli ku tala jirno oo communitiyada iyo muslimiinta meela joogaanba aan rabno inaan ku baraarujino inay isku dayaan ilaa xad qolo waliba dowladda ay la nooshahay in loo diyaariya dad waxaan dhaqa oo dharkii haysta oo loo tababaray oo iyagu hawshaa kafeeye in la sameeyo oo muslimiinta ka mid ah taana insha allahu tacaala howlaa nooga socda haddii alla idmo laakiin haddii taasina guulaysan weydo maxaa dhacaya qofkii waxay noqonaysaa in aan la dhaqin ma imaan kartaa in balastica korkeeda biyo lagu shubo maya looma baahna in biyo dusha laga shubayo waxba faa'iido ma keenayso qofkii lama dhaqin jirkiisi bay ahayd in la taabto marka taas looma baahna marka waajibkii marka waa naga wareegaya alxamdulilah waxay noqonaysaa inayna dhibaato yeelanin ayib waxaa soo gelaya kafankii qofkii waa xiran yahay haddana balastic buu ku xidhan yahay dowladdii baa soo xidhay lama taaban karaa la yidhi seen u kafanaa hadday suuragal tahay maro labaad ama maro saddexaad baa dusha looga sii xidhayaa isagoo kiisii ku xidhan balastica hadday suuro geli weydana balasticgaa naftiisa loo daynayaa maxaa jira qofkii in la asturay ahayd waana xidhan yahay hal maraa waajiba halkii marana waa ku xidhan yahay labada iyo saddexdu sunno wey intaa markaan marayno salaadii baa imaanaysa haddii la yidhahdo ha lagu tukado haddii la diidaba ka waran oo loo soo dhowaan karin horta salaada in qofka la kor istaagaa waxba shardi ma ah waa laga fogaan karo space dheer baa loo jirsan karaa xaggoo kalea la dhigi karaa inagoo usii jeedna waa suuragal hadday taa xitaa la diido oo dowladdii ay kuba tusi weydo ama lagu diido ama tiradii dadkii ku tukan lahaa la diida nafteeda horta jamaacadu way yar tahay waxaan ku baraarujin lahaa sida maxamed sheekh uu sheegay dadku ha yimaadaan dad yar jamaacadu 3 qof bay ka bilaabataa 2 qof bay ka bilaabataa jamaacadu markii salaad la tukan 2 ruux waa jamaaco marka intii suuragala 4 haddii la yiraahdo ka badan laguma imaan karo 4 taa lagu joojiyo 3 haddii la 3 taa lagu joojiyo 5 haddii la 5 baan ku joogto 10 haddii la inoo ogolaado alxamdulillah marka inay dadkan tirada badan ee dirigleynaya yani waa inay shuqaataan awaamirta iyo amarada soo fulay in siday tahay loo qaato haddii marka ay dhacdo salaadii nafteedii in la sameyn waayo oo ama lagu tusi waayo ama la diido ama looma dhowaan karo iyadana salaadina way dhacaysaa waxaa loo tukan karaa marka salaatul ghaib ama dadka magaalada jooga u tukan kara ama waxaa u soo tukan dadkii wadamadeedni ku noolaa shalay nin baa ku jirta ingiriiska oo la ii sheegay oo loo diiday la yidhi lagu tukado Soomaaliya looga soo tukaday gobolada Soomaaliya looga tukado la soo wacay waa lagu tukan karaa marka salaatul ghaib baa xilliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam ninkii najaashiga ahaa ee boqorkii xabashida muslimay markuu ogaaday inaan lagu tukanin ayuu asxaabtu yidhaah lagu tukado marka qofka haddii la ogaado inaan lagu tukanin waa salaatul ghaib baa lagu tukan karaa sidaasay dadka muslimiintii uga wareegi karaa waajibkii iyo wixii saaraay oo dhan hadday suura geli weydo waa ka wada wareegayaa qofkana waa la iskaas marka qofka inay dad badan ku tukanin inaan la dhaqin haddii sharci loo istaago ay suuro geli weydo ma aha inuu qofku xun yahay ma aha inay qofkii qof liito uu noqday ma aha dadka ugu fadli badan dadka shuhadadii iyo dad la dhaqan ma aha xitaa hadduu hadda xajku uu qofku ku dhinto dharkiisa lagu aasaa ama maarta kii goobta ku yani waxaad dareemaysaa marka uma keenayso ruuxii waa ruuxun lama oran karo waxa la wixii inoo suuragala baan samaynaynaa insha allahu tacaala wixii awaamira oo kasoo fulay ee dowladaha iyo maamulada lala nool yahayna waa in sideeda loo qaato insha allah waxaynu kaloo ognahay dadka Soomaalida
isu socodkan la mamnuucay waddan kastoo ay joogaan khaas ahaan magaalada Seattle Washington aynu maanta ka hadlayno in Soomaalidu aad moodo dadka qaar in aan wali dhagu dhigin oo iska sii socdaan ama ay leeyihiin Soomaali baan ma believe grace-ni waxani waa iska been ama waxyaalahaas oo dhan ay sheegayaan taasina ay ka duwan tahay sidaan ula soconaba newsyada ama adduunka halka marayaan iyo sida bandool loo soo rogay dhaqdhaqaaqa dadka in la yiri yareeya inta ay labada qof isu jirsanayaan haddii ay wada joogaan inkastoo la diiday waa 6 feet 2 mitir isu jirsada baa la yiri haddaba Somali Helport oo iyagu ka ah dad caafimaadka wax badan ka caawiyay fiidiyoada halka ka muuqdana inuu ka arkayno horena dhowrkii sano la soo dhaafay dadka isu soo saari jiray xilliyada kuleelaha yimaada ama qaboobaha oo ka caawin jiray in cudurro badan oo dadku dhakhtar u tagin laga baadho ama macaan ha noqoto sonkor ha noqoto neef ha noqoto iyo TB waxyaalo badan aad gacan u siiyo oo free oo ay isu awoodeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka tirsan ama degan magaalada Seattle Washington ay xoog ka soo wadeen ilaa hadda maxay tahay fariinta adag ay maanta haddana u sheegayeen dadkoodan degan Seattle Washington Mustafa aad baad u mahadsan tahay saad u sheegtay Somali Health Board wuxuu u taagan tahay caafimaadka bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolkan fariinta aan la wadaagayno bulshada Soomaaliyeed waxay tahay in cudurkan uu halis cad ku yahay dunida idil marka waxaa loo baahan yahay Soomaali haddaan nahay in aan waa inaan u hogaansano awaamirta ka soo baxday dawladda gaar ahaan gobolkan gaar ahaan waaxda caafimaadka awaamirtaas oo ah in dadka aysan isu jirsan 6 tallaabo wax inka dhow waa in dadka gacmahooda ay dhaqaan gacmaha waa waxa kaliya oo la og yahay in ma aragtay cudurkan lagu xakameyn karo gacmaha markii la dhaqaayo waa si fiican in loo dhaqo ugu yaraan waa biyo in lagu qooyo marka hore marka xigana waa in saabuun lagu rugaa kor iyo hoos iyo cidiyaha iyo meel walbaba taa markii laga soo tago annaga Soomaali haddaan nahay Soomaalida waxaa waaye waa dad qumanahooda qoorta ugu jiro qumanahooda qoorta ugu jiro markaan leenahay waa maskaxdeena waxaan jecelnahay in aan ma aragtay aan inkirno mise aan iska dhaadhicno inaysan jirin arrimaha runta ah oo dhacayo cudurkan dadku uma kala aabiyeelayo wuu kugu dhici haddii aad muslim tahay haddii aad gaal tahay haddii aad waayeel tahay haddii aad da'yar tahay cid walbuu asiibaya marka si cudurka loo xakameeyo waa inaan dhaqdhaqaaqayna yareyno dhaqdhaqaaqa markii aan ka hadlayno waxaa waaye waxyaalaha oo daruuriga ah sida isbitaal haddii ay emergency isbitaal u socoto oo arrin degdega ay ku haysato labo haddii aad soo adeeganayso cunto iyo ama dawo aad meel ka soo iibsanayso waxaanan ka ahayn in loo socdaalo waa la reebay waa amarka ka soo baxay dawladda waa taa markii laga soo tagay waxaa loo baahan yahay annaga Soomaali waxaan nahay dad bulsho ah bulshadana waxaa waaye waa wax fiican oo la dhiirigeliyo balse waqtigeedii lama joogo waxyaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah in aanan lisu tegin lis ilaaliyo gaar ahaan liska ilaaliyo dadka waayeelada ah dadka xanuunada qabo si cudurka aan looga tallaalin marka dadka waayeelada ah dadka xanuunada qabo sida dhiigkarka oo kale korta xanuunada wadnaha ku dhaca marka dadkaasi halis bay u yihiin in cudurkan si gaar ah u saameeyo marka waxaa loo baahan yahay in dadkaasi liska ilaaliyo oo aan loo tegin markii la leeyahay dadkaasi waxay u baahan yihiin caawinaad bay u baahan yihiin in la caawiyo dadka ayaga oo loo gargaaro marka loo gargaarayana qof caafimaad qabo oo og in uu caafimaad qabo oo gacmihiisa si fiican u nadiifiyay qalabkii waxyaalaha ay la wadaagayaan si fiican u nadiifiyay inay u tagaan waayo oo marka haddii wax u qabanayaan u adeegayaan marka dadka iyada in loo gargaaro waaye in shuruucda loo hoggaansamo waaye maqaayadaha markii aan ka hadlayno kale maqaayadaha waxaa la amray in aan la fariisan karin cuntada aan laga cuni karin balse laga soo qaadan karo dadka markay cuntada soo qaadanayaan waxaa loo baahan yahay inaysan saad isugu dhawaanin marka xiga waxaa kaloo la rabaa in albaabada laga soo galaayo ay nadiifiyaan oo si dadka soo qabsanayo cudurka albaabka uusan ugu faafin oo sababtoo qof cudurka qaba hadduu taabto albaab waxaa laga yaabaa in uu ku faafo qofka kaloo xiga uu meesha taabto marka
nadaafadii waa inay ku dadaalaan caafimaadkii gaar ahaan dhaqista gacmaha iyo meelaha maaragtay dadka ay taaban karaan inay ku dadaalaan waaye marka arrinkaas kale yahay runtii waxaan jecelay bal inaan sheekh axmed nuur iyo maxamed ba weydiiyey labadooda bal fikrad ahaan soomaalida maanta ku dhimatay baa la yidhi waddanka Sweden marka la eego percentage-ka dadka jooga aad baynu u yeernay laakiin dhimashada la eego aad bay ugu badantay dadka Soomaalida markii ugu dambeysay waxay dhowr iyo 30 baa ku dhintay dhowr iyo 10 baa Soomaaliha Ingiriiska sidoo kale wadamo kale sidoo kale Minnesota waxa yidhi dadku wali socod buu ku jira ama magaaladeena aynu joognaa aanad moodayn newska iyagoo la socda inay diidan yihiin oo dadkii iska socdaan haddaan dib ugu noqdo waddankeena madaxda waddanka joogta waxay aad u sheegeen dadku inay wax maqlaan oo dadka qaar ay kaba dhaadhacsan waxaan waa filin la sameeyay caynka sheekh haddaba arrinta dadka qaar waxa bay leeyihiin dadka adduunka faafinaya Soomaalidaaba ku jirta madax adeeg diraadiyo aad u soconay kii qabay kii kale lama garanay waxba way socdaan sideed arrinta sheekh aad loogu bayaamin laasay qofka islaamka ah maxaa laga doonayaa ee jecel inuu sameeyo hadduu is ogyahay inuu qabo dad baa la sheegayay dad casumay gabdho iyagoo isog ay qadooyin dad u sameeyeen taasina waxay keentay in arrinta aad u fidinayeen oo kale dib weyn ay bulshada ku keentay iyo wadamadii dadka ay la deganaayeenba bismillah anigoo uga faa'iideysanaya arrintaas insha Allah ta'ala ba waxaan soo jeedin lahaa waxoogaa talooyina oo aan raba bulshadeena inaan la wadaago meesha rabtaba ha joogno arrinta ugu horeysa waxa weeye horta arrintan oo kale markay timaado dadka ninba meel buu sheekh ku yahay marka dadka atibada iyo dhakhaatiirta iyo healthiga iyo caafimaadka iyo baa looga dambeeyaa culimadu xitaa markay jawaab ka jawaabayaan waxay uga dambeeyaan caafimaadka marka sidaas daraadeed dadka caafimaadka ku shaqale talooyinkooda ha la qaato siday tahay loo qaato waa marka labaad oo ay kamid tahay midii hadda walaalkeen Faarax uu sheegayay inaan la isu dhawaanin inaan la is salaamin hadii la yiraahdo inaan in la nadaafadii lagu dadaalo la dhaqo gacmi haddii wixii amar ah ama ka soo fula dawladaha lala noolyahay iyo gobolada la joogana iyagana say tahay loo qaato haddii la yiraahdo guryaha ayaan laga soo bixin guryaha ayaan laga soo bixin waxaa ka dhalan karaa dhibaato kale ka imaan karta waa arrinta saddexaad waxaa kaloo uga faa'iideysan lahaa inaan iraahdo dadka cudurkani waxaa laga yaabaa waqti dheer buu qaadan karaa ilaahay baa waqti uu gaarayo marka in wixii cuntooyin ah oo ooli kara iyo wixii daawooyinka iska caadiga oo ooli kara iyo hal la iska qaato iyagana in la gato oo guriga la iska dhigto waa iyadana tala aan soo jeedin lahaa waxaa kamid ah oo kale sida walaalkeen Mustafa uu sheegayo dad baa jira cudurka qaba oo laga yaabo inay faafinayaan oo cadaawad iyo xiqdi kale ku jira suuragal waxaa la sheegayo oo kale dad iska dhigaya neeris kuwa iska dhigaya boolis kuwa iska dhigaya dhar inta soo xidha guryaha soo garaacaya marunba mise waa been taa waa mas'ale kale laakiin anaga waxaan naga qusaya xadarkeena iyo digtoonideena waa inaan qabno waa inaan u qaadano inay dhab tahay oo kale marka albaabkaaga qofna inaadan ka furin qofku haday dhacdo sidaas la sheego oo kale qof qabaay inuu u qasto inuu dad kale gaarsiiyo hada waxa la yiraahdaa waa qaatil qof binu aadam ruux dilay buu la mid yahay qofka qof binu aadam dilayna waxa la yiraahdaa wuxuu la mid yahay ummadan oo dhan qof dilay oo u qastay waayo qof ninkii dilaa inta kale inuu dila ayay la mid tahay iyaduna dadka waxa kale oo kula tartaarmi lahaa dadka inta badan shaqooyinka sida hadda tagaasida oo kale nimanka wada overlayda dadkaas oo kale waa dadka inta ugu badan dad ay soo korayaan ee soo raacayaan mana oga qofka ku soo raac marka inaad nadaafadii anagu ma oran karno mar walba yaan shaqadii la aadin laakiin dawladda awaamirteedana hala qaato haday dhacdo inaad bawrka qof ku qaadana qofka waxa la waxaad isticmaali lahayd oo aan nadaafadii wixii ku kaleyn garan lahayd albaabku ruuxu ka soo galay inaad wixii aad siisay xitaa qofka isaga directionkii uu qaadan lahaa indhisadii iyo qofcii waxyaabaha intuu kula joogo markuu ka baxo inaad meeshii tirtirto marka dad dadaalkooda qaba aynu noqono haddana dad muslimiina baan nahay si gaara ilaahay baryadiisana aan badin insha Allah ta'ala arrinta ayada waxay tahay Mustafa walaalow sida haddaan ka hadlayno maxay tahay ummadii in awaamirta la fulayo iyo waxa la isfaray oo wanaaga in la qaato Soomaalidu way ka dhigalaada run ahaantii bal waxaad qiyaasi kartaa qof isagu intuu baxay oo qoys leh baxay oo meel macna darratay cudurka soo qaaday cudurku muxuu keenayaa qoyskii buu keenayaa oo laga yaabo 5 qof 6 qof 10 qof inay ka kooban yihiin marka dhibaatada ayada ah qofkaasi reerku u keensaday not only qoyskiisa kaliya bulshada kale inta uu gaarsiinayo intee la eg tahay marka waxa taxadar la'aanta ayaa keentay Soomaalidu inay cudurrada isqaadsiiyaan oo aynan raacin awaamirta lagu talagalay in lagu fuliyo oo ummadda ah taxadarka cudurka Ilaahay baa keena
laakiin taxadarkii lagu faray waa inaad qaataa marka Soomaali hadaan arinta ayadana waxay u muuqataa in aanan muxuu ahaayto u dhaga duleelin arinta ayada ah waxyaalaan ka hadlayna hadduu sheekhu ka hadlayay oo aan ka wada hadlayna waxay tahay wargeeridii markay dhacday qofkii uu dhintay soo dhibaato maaha dad fara badan oo nool inaad ayaguna qabri geyso because of dhibaatada aad soo qaaday oo ummadii iskugu tagay meesha qof xanuunsan intuu yimid meesha ku qaaday qofkii isku og cudurkan fadlan wa ihsaan ummadda kale ha gaarsiin hana ku faafin haddaad dareemayso inaad cudurka qabto ama symptomska ama calaamadaha isku aragto fadlan quarantine isgali oo meel isku xir ummadda kale si aad u badbaadiso walaalayaalow waxa weeye waa ayaan daro inaan anagu dadka ugu yarnay hadan dhimashada ugu baan tahay maxaa keenay ixtiraam la'aan xaq dhowrid la'aan ismaqal la'aan ayaa dhibka keenay waxana way soconayaan haddaan isbedel weyno dadka aaminsan waxaan inay been tahay xaqiiqadii ha arkaan in ay waxaan dhab tahay marka ummaddu mas'uul baa ku saaran inaad ka taxadirto naftaada ehelkaaga iyo ummadda society kula nool inaad ka ilaaliso cudurkan in dhibaato geyn maxaad samayn kartaa amarka qaado gurigaaga ku hako aad ku hakatide waxa lagu faray oo nadaafada sameey ha bixin oo macna darro meel ha u tagin meel aan macna darro ha gelin waa waqti adag weeye guryaha lagu wada xariisan dadkii wadanka u dhashay oo guriga ku xariisan waxa ku kalifiyo ku wado maxay tahay wadanka waxaad u timid danbaad u timid fadhi ku dirir warkiis ma jiraba taayada marka fadlan wixsaanka waxa la sheegay maqaayado wali sports lagu fiirsado oo ba ama ka dhigala waxa la sheegayo oo sports ku fiirsanaya inkastoo sportida la xiray hadda wuxuu ku fiirsan ciyaari hore war heeda soo taliya la soo imaanin wanima yahow dhagihiina waa xiran jaahilnimada in ku wacan dhibaatana haysto waxa way aqoon dariba wax loo geynaysa fadlan wixsaanka hadalka maqla amarka qaata war wadantiina maslaxadiina bal haddaba su-aasha ugu dambaysan jecel inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkan anigu shakhsiyan haddaan iska hadlo ama familigayga runtii dadku guriga ayuu ku jiraa in la soo baxana maaha qof necessary ama shaqo ay ku khasbay ama waxyaalo kale mooyaane waa sida maxamed hore u sheegay ama dhammaantood baa hore wada sheegeen inaan qofku fadhi ku dariyo wax waqti lumaysa intuu yimaado haddana la noqon fariintii dadkii guriga u geyn ama dadka la samayn maxamed magaalada waad joogtaa soomaalina waanu ka warhaynaa fikrado badan baa dadka qaar ka dhaadhacsan waxaan inuu feeg yahay oo la sameeyey sida madaxweynaheena Trump oo kale uu markii hore oran jiray bari hore dhowr week hor arrintan waa feeg dimuqraadigu sameeyey dad baa believe garaysan China iyo Mareykanka wax ka dhaxeeyaan kana wax sameeyey marka dadka maxaad ka oran halkan naga daawanaya fikradaha khaldan dadka u gudbinaya waxa ayaan darro ah waxa Soomaaliya tiraa lax dhukan abaar moog war miyaadan arkaynin aaska maalin walba soconaya inta number oo la sheegayo oo Mareykan maanta u marayo ma waxa soo dhanba wadanka dhan in la xiro soo arki maysaan businessyada in la joojiyo soo arki maysaan wax isu soconaya inay jirin adduunyada dhan cudurkani waa xaqiiqo waa jira haddaad aaminsan tahay oo aad leedahay ma jiro dee dhegihii ilaahay duleeliya wax maqla dhegaha ku xidhan ka asaga ta kale maanta ay ugu horreysana ka soo baxo guriga for the last 2 weeks maxaa keenay arrintan aan soo baxay maxaan u dhaxayaa shaqadu waan tagaa shaqadana waxa schedule loo sameeyay qofkii xafiiska inuu laba qof ka shaqeyso oo qolkooda soo xidhaan labada qofna isma gaari karaan shaqada markaan ka soo baxo gurigayga nimaada meel kale dhaqaaqa ma leh wax ka baxa reerkayga ma jirto adeeg haday noqotana u soo adeega maxaan u yeelaynaa waa inaan fulino awaamirta marka dadku haday dayal idin tahay waxa weeye maxaa la yiri wanka ilaa la gooro indaysa cirka markaan markii aad reerkii aad baabiiso aqoon darrada awgeed cudurkii isu keentaan markaad wax ogaanayso laakiin waxa tala fadlan dhagiin Allah idin furo war cudurka waa khatar waxa la iska ilaalin kara maaha hergab waa ka daran yahay waxaad arkaysa maaha waxaad urinaysa maaha waxaad taabanaysa maaha oo waxaad hawada ka qaadayso waxa kale oo jirtay qoys 7 qof ka kooban oo Mareykanka ah East Coast-ga ah 4 qof cudurku ku dhimatay 3 qofna waxay ku jiraan isbitaalka maxay galabsadeen waxay isugu tageen birthday oo family-kooda ah oo khaldanay taayada waa xaqiiqo qoyska 7 qofka ah waa alam 4 tage 3da waxay ku sugay ilaah baog markuu waa dhab oo wax waa jira habaabiina dadka fadlan ogaado dhagaha Allah idin furo kaliya waxaan ku dari lahaa inaan si gaar ah aan u tilmaamo booqashada ziyaarada leeyahay Soomaalidu waa dad iska socda waa dad maanta oo dhan wareegaya guryaha la soo tagaya waa lagu shaacaba waa lagu soo kaftama marka rag iyo dumarba booqashada in la joojiyo iyadana xilligan booqashadii la tagi jiray maadaama la yaan la soconin ha loo bedelo in la adeegsado qalabkan media telefonka ha lagu waco qofka FaceTime ha lagu waco dil raba darta abaayo hooyada inaad aragtay xitaa FaceTime kala sheekayso
maxaa jira dad badan baa i weydiinaya waalidkii dhalinyaro ma noqonaya caasi oo ruuxii aabba uma tegin hooyo ima imaanin baa la dhihi karaa. hooyada iyo aabbaha naftooda waa in lagu qanciyo in iyaga laga ilaalinayo bacdallaahi. dadka la ilaalin waa dadka waaweyn, marka waa in iyagii loo sharaxo oo loo sheego oo la yidhaha iyaga safetygooda dartood iyo iyaga dantoodii baa looga fogaanaya. marka waa inuu qofku ka salaan hooyada aabbaha, taleefonka ka salaan, miidiyaha kala hadal. laakiin iska socodkii soomaalidu habeenba guri ku shaahayn jirta, rag iyo dumar bal isdaba wareegi jiray. fadlan iyadana hala joojiyo. intaasaan ku dari lahaa. hadda barnaamijkan aan ugu talagalnay outreach dadka Soomaaliyeed ee degan magaaladan Seattle Washington iyo nawaaxigeeda iyo dadka kale videogeygan halkan ka daawanaya adduunka meel kasta ay joogaan. waxaan jecelahay inaad dadka kale u sii gudbisaan. I hope idinkuna inaad ka faa'iideysateen sababaha loo leeyahay guriga joog ama waxa sameeyna haddaynu Soomaaliyeed iyo arinta aaska iyaduna isbedel weyn ku keentay bulshada Soomaaliyeed ama islaamka meel kasta adduunka jooga kadib markii coronavirus uu adduunka bedelay wajigii lagu socon jiray. su-aasha ugu dambaysa hadda waxaan jecelahay aan weydiiyo Faarax Bile oo Health Somali Board ah gudoomiye ku-xigeenka Somali Health Board oo siyaal ka jira oo runtii aad u caawiya aqoonna dadku u leeyihiin. dadka guryaha jooga ee na daawanaya halkan King County ama Washington State ama siyaal aan idhaahdee wuxuun doonay inay ka ogaadaan ama family qofka xanuunsaday ha noqoto ama calaamado xanuunka lagu keenay ama arrimuhu si kasta ha noqdaan number ay kala soo hadli karayaan ama email ma jira aad noo sheegi kartaa arrinta ama nala share gareyn kartaa halkan. Mustafa marka hore aad baad u mahadsan tahay. Somali Health Board sidaan idin sheegay waxay u taagan tahay wanaaga iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshadeena ku nool gobolka Washington. mar walbo waa waxyaalaha annaga hawsheena gaar ahaan dhanka caafimaadka. marka waxaan bulshada Soomaaliyeed aan ku dhiirigelinaynaa in ay u hoggaansamaan awaamirta. haddii ay su'aal qabaan way nala soo xiriiri karaan habeen iyo maalin. waan u taaganahay ummadda Soomaaliyeed in aan ka haqabtirno waxyaalaha macluumaadka la xiriira caafimaadka. numberka Somali Health Board lagala soo xiriiri karaa halkan ku sheegayaa. numberku waa 425 389 8974. waxaan ku sheegayaa mar kale numberka asaga af Ingiriis 425 389 8974. waxaa kaloo Somali Health Board lagala soo xiriiri karaa somalihealthboard@gmail.com. waxaadna soo weydiin kartaan su'aal walba oo ku saabsan arrinkan hadda taagan ee coronavirus ah. marka annagoo su'aalaha idinka jawaabi doona Ilaahay hadduu yiraahdo. tan kale ummadda Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa dadka laciifka ah gaar ahaan waayeelada in loo naxariisto oo laga warhayo. xitaa waayeelada markii laga soo tago dad waxaa jiray shaqo ahaan ku tiirsanaa Uber iyo Lyft inay wax wadaan. marka in aan isu naxariisano oo aan isu gargaarno aan isku dayno aan cudurkana xakameyn Ilaahay hadduu yiraahdo. aad baa u mahadsantiin. hadda barnaamijkeeni maanta intaasaan kusoo gunaanadina insha Allah tan iyo nooli kulante. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.